ولي waxaan ku jirnaa booqashadeennii magaalada Sarajevo ee dalka Bosnia maanta waxaan go'aan ku gaarnay inaan korno tramka magaalada waxaaba kuwii hoteelka inoo sheegeen inuu free yahay kooda Janaayo ilaa iyo hadda inuu free yahay marka xasna fursadda ka faa'iideysta magaalada oo dhan xaafadaha iyo kulli ciyaar xaafadu kulli soo fiiriya ismeeri marka taariikh ahaan tramka وماشي وجوهري خارج يوروب ولقوا ديسي ترامكا يعني ترام هان وجوهري سان فرانسيسكو أمريكا ترامك وجوهري لقوا ديسي لكن يوروب هان ماشي أنا وجوهري سي ترامكا أو لقوا سميه وحاسميه أسترو هنغاريان أو بورتوغالي دي مركا وحي ربين أستري إني كسميه لكن intay Austria ku dabaqin waxay barooba ahaan ugu sameeyeen magaalada Sarajevo ayaga xukumayay markuu u toosay kadib ay Austria geeyeen laakiin magaalada Sarajevo waa meeshii ugu horeeyay oo tram lagu sameeyo oo tram lagu xiro oo tram ka shaqeeyo waa qaaradda Yurub yani taariikh ahaan saas ayaa lagu xasuustaa tramka San Francisco ayaa ugu horeeyay oo lagu sameeyay marka wali waxaan ku jirnaa wareegeeni nala socda haduu ay bidmo haddana waxaan ku dadaalnaa waxaan u soconaa National Museum ka insha Allah ta'ala oo aan halka ku fiirin doono taariikhda Sarajevo haduu ay bidmo waxaan fulnaa tramki ku soo dhawaada iyo nala socda magaalada Sarajevo oo magaalo taariikheed ah oo kulmiyay taariikhdii boqortooyada Cusmaaniyiinta ah iyo boqortooyada Austro-Hungarian marka waa laba ismooyin laba dhinaca oo iskaabayo taasna waxay ku tusaysaa in islaamka iyo yani reer galbeedka dhaqankoodii lagu wadi karo Bosniana waxay caddeeyeen in qofka uu noqon karo qof Yurubyaan ah أنا مسلم نكون كرو أو أي لبضة بإسلاس عنايان معنا بالكرير بوزني وحي عديين إن خفك يوروبيان كها ونا يوروبيان كيسا هانكرو ونا مسلم مدي سنة ويعني أقول كتاس أي وعديين دلالك يوروب ومرك إنا يوروب إسلام إسلاس عنكران مرك أنا جنا وحنا لقيت بون إنا دخلوه دي كت بينه وأي كرو كعان حيالي هديك وليستان وحي عديين إنسان إن qofka Yurubiyaanka oo muslimka ah uu kor u kicin karo horumar gaari karo marka waajib ina saaran waaye dadka muslimiinta ah yani inay dalkan dalxiis u imaadaan dhaqaalahoodii ay wax ku kobciyaan ay kordhiyaan kana bartaan taariikhdoodii waxyaabo badan ka faa'iideysanaysa waa meel raqiis ah hoteeladoodii cunadoodii wax walba waa wax la awoodi karo sidoo kale marka ka imaanaysa dalalka Yurub laba saac u soo soconay diyaaradda ama 3 saac waa meel aad u gaaban waa meel sicirkeedu aad u fiican waa meel hawadeedii aad u fiican oo gaar ahaan waqtiyada samarka marka ay imaado waxyaabo badan arkaysaa waqtiyada winterkana waxyaabo badan arkaysaa marka waa muhiim waxaan ku boorinaynaa inaad soo ziyaarataan dalkan quruxda badan oo walaalihiina ah dhaqaalahoodana wax ku keedisaan haduu ay bidmo barakallahu fiikum nala socda meelo kale ayaan tagi doonaa haddana waxaan imaanay National Archive National Museum-koodii qaranka waa maalintii afaraad jawiga uu ka duwan yahay maalmihii hore aan joognay maanta waxa da'aya baraf sida la og yahay Sarajevo waa meesha ugu qabow badan dalka Bosnia maadaama buuro ay ku hareereysan yihiin waa magaalo aad u qabow marka maanta waa u jeedaan waa maalin baraf da'ayo laakiin taasna nagama reebin inaan soo booqano madxafkooda qaranka si aan uga barano taariikhdoodii oo aan uga faa'iideysano marka fadlan nala kaalaya aan fiirino wixii gudaha ku jiro oo taariikhdoodii ah si aan uga barano maxaa yeelay Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri fasiru fil ardi yani macna dhulka ku socda macna fiiriya dadkii hore wixii taariikhdoodii ay tahay si aad ugu barataan marka bal nala kaalaya aan fiirino dadkan taariikhdoodii haddana waxaan gudaha u soo galnay museum-ka
dhankayga midig waxaa xiga dadkii aasaasay museumka, dadkii aasaasay dadkii archaeologiska oo dhulka qoday iyo waxay soo saareen. taasna waxay ku ogaadeen in dalkan uu dad mar hore ay dad deganaayeen, xataa Roomaanka ka hor ay dad deganaayeen. markii la qoday dhulka ayaa waxaa laga soo helay wax badan oo dadkaas ay ku noolaayeen. marka inta wuxuu sheegayaa waqti hore oo qadiim ah 5th 4th millennium inay dad ku noolaayeen. waxyaabihii arkeen dhoobada oo la adeegsan jiray, dhoobada markii adeegsigiisa waa laga gudbay, waxaa lagu gudbay bronze, waqtigii bronziga, qarnigii bronziga. marka khubuuraha waxay ka heleen waxyaabaha maarta ah, biraha oo maarta ah. marka waa markay barteen habka biraha loo adeegsado. waa kan masaartii iyo ay adeegsan jireen, macnaa bronze era ay u bixiyeen oo waqtiga la adeegsan jiray maarta. kuwaan oo dhanna waxay caddaynayaan siday wax u karsan jireen iyo macnaa maarta sida loo ilaaliyo, maarta siday u ilaalin jireen iyo foornadii maarta lagu ilaalin jiray iyo waxaasoo dhan ayay caddaynayaan. sawirkan haddaa aragto maarta sida loo ujeedaa, digirtii iyo burxabuubka meesha ay ku shiitaan rootiga ay samaysanayeen iyo dhuxusha meesha ay gelinayeen oo isagoo waqtiga qaboobaha ay uga adeegsadaan, iyo meesha ay seexanayeen sariirtoodii. nolol caadi basiid ay ahayd, mashiin iyo waxaas ma jirin. marka waxa ay ku shiitaan cunnada, waxyaabaha dalaga ay soo abuurtaan. waa kaas meesha anaga mooyada iyo waxaan aan samayn jirnay. marka tan qaybtoodii hore waa noloshoodii hore. waxaan u gudbaynaa dhanka kale oo noloshoodii dambe ah, qolalka kale. haddana waxaan soo aadnay dabaqii labaad. sida aragtaan dabaqii labaad wuxuu sheegayaa siday u horumareen kadib markii oo bronze age ay ka baxeen. markii ay la fiirisaan qolkii hadaaya aan soo aragnay kana xoogaa yara horumarsan oo u jeediin kursiyay samaysteen, miisay samaysteen oo wax ay ku cunaan, iyo jikadii waa horumartay, waxay samaysteen suxuun iyo waxyaabo badan, iyo ujeedaan mididii iyo waxyaabo badan ay samaysteen. haddii aad dhinacan aad aragtaanna dhanka oo biraha waqtiga uu soo gaaray waxay leeyihiin qarnigii koowaad ayuu na soo gaaray dhanka oo biraha ama maarta la adeegsado. marka aragtaan halkan wuxuu ku tusayaa safety iyo falaarihii iyo waxyaabihii ay adeegsan jireen, helmetka oo madaxa la gashan jiray. quraankeena wuxuu leeyahay waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidun wa manaaficu linnaas. yacni nebi daa'uud ayaa la baray sida loo isticmaalo biraha. marka ayaga waxay leeyihiin waqtigii horena soo gaaray oo macnaa millenniumka qarnigii koowaad uu na soo gaaray ay leeyihiin. marka waxay ka heleen dhulkoodii markay qodeen ayay waxyaabahan ka heleen oo biraha la adeegsaday. marka waxyaabahan oo dhan يعني waxyaabihii ay isticmaalayeen, waxyaabaha la isku qurxiyo, waxyaabaha guryaha ay u adeegstaan mataaca beedka, sidoo kale dharka biraha ah oo ragga ay gashtaan inay isaga difaacaan cadowga iyo gaashaankii iyo safety iyo wixii, iyo caruurtana waxyaabaha ay isku sharxaan, katiinadii iyo dhegdhegaha ay gashtaan iyo waxyaabihii, iyo habeenkoodii sida isku qurxiyaan, waxyaabihii adeegsan jireen ayay marka waxaan oo dhan waxay leeyihiin waa qarniyadii hore. marka waxay caddaynayaan in dhulkoodii ay ahayd dhul mar hore oo la deganaa oo markii ay la qoday oo macnaa oo ay dad badan ku noolaayeen. taasna waxaa ugu wacan webiyadoodii iyo waxyaabaha macnaa lagu noolaan karo. qofka hadduu webi haysto oo buurar haysto oo isku difaaco, macnaa meelaha ugu fiican oo la dego ayay ka mid tahay. marka waxaan oo dhan waxay rabaan inay ku caddeeyaan in dhulkoodii uu ahaa dhul qadiim ah oo la deganaa. marka archaeologistana markii ay qodeen macnaa waxaan waxay isticmaalaan caddeyn ay ku caddeynayaan inuu dhulkan dhul qadiim yahay oo meel fog laga keenay. marka baarakallah. haddana waxaan soo galnay qaybtii kale oo ah lagu romanization of the Sarajevo ay dhahaan, macnaa markii Romanka uu soo galay
oo saameynta uu ku yeeshay romanka boqortooyadii romanka. taasna waxaa caddeynaya haddaa fiirisaan dhismooyinkii oo tiirarka iyo say isku bedeleen ayay caddeynaysaa. markaa fiirisaan halkan waxay ku leeyihiin hab dhismeedkii gaar ahaanna waxay leeyihiin romanka waxay soo degeen qaybta xeebaha. sida la ogyahayna qaybta xeebaha ayay xadaarada ay badanaa ka faaftaa. markay dhanka xeebaha soo degeen ayaa meeshan waxay noqotay Bosnia meesha oo waxay noqotay trade hub, meel ganacsi oo lagu sameeyay. romankana ayaa aasaasay. markaa fiirisana halkaas haddaa imaado wuxuu ku tusayaa in ay la ganacsan jireen dunida kale, qaaradda Aasiya iyo macnaa iyo meesha oo ay iska soo galaan eastiga iyo westiga inay noqotay Bosnia. marka qaybtan oo dhan waxay caddeynaysaa saameynta uu romanka ku yeeshay iyo hab dhismeedkoodiisa isku bedelay iyo xitaa guryahoodii dhismaha soo isku bedelay. hadda qolkan markaa soo gasho waxay ku tusaysaa jikadii aan soo arkaynay xagga cunada lagu karinayay macnaa habka ay isu bedeshay ayaa soo arkaysaa oo macnaa halkan wuxuu caddeynayaa markuu romanka imaaday يعني qaabka ay cunada u karsadaan iyo waxyaabuhu waa isbedelay oo macnaa kan hadda wuxuu sheegayaa sulfiyada iyo wixii ay ku karsanayeen wixii oo dhan isbedelay. macnaa saameyn weyn oo horumar ah ayuu romanka ku yeeshay hab dhismeedkoodii. meesha waxay noqotay meel oo ganacsi oo trade hub ah oo isku xira Europe iyo Asia. marka qaybtan waxay u bixiyeen romanization of Bosnia and Herzegovina. معنى deegaan kan ay u bixiyeen oo saameynta uu ku yeeshay. marka waxyaabo badan oo warbixina ku qoran laakiin waa idin soo koobnaa. qofka markuu yimaado wuu ka bogsan karaa hadduu eebbe idmo insha Allah. qaybtii taariikhdii hore waa ka soo dhameysanay romanka iyo waxaas. haddana waxay nagu yiraahdeen maxaa la dhahaa qaybtii boqortooyada Cusmaaniyiinta waa banaanka inay u baxdaan. waxay la yiraahdeen waa dhanka banaanka inay u baxdaan, barafaa da'ayo. marka waa inaan soconaa oo aan tagnaa dhinacaan ay yiraahdeen waa left. marka waa inaan ka warjelinaa waxay yiraahdeen. markaan gudaha u soo galnay dhankeena midig waxaa naga qabsaday taariikhdoodii suugaanta dalkan Bosnia. marka aragtana waxay ku tusayaan habka uu u horumaray waxyaabaha music loo adeegsado sida cuudka, siday ku bilaawday ilaa heerka horumar ay ka gaarsiiyeen. sidoo kale waxay ku faanayaan yani oral historygooda, gabayadoodii waa gabay macruuf ah oo dheer oo meerisyo badan leh. gabayadoodii ayaa halkan ku qoran. marka ahmiyadda suugaanta ay leedahay iyo taariikhdeedii xitaa markaa nala daawataan dhanka hoose waxaa arkaysaa gabay uu nin tiriyey. gabaygaas uu ninka tiriyey awgeed ayaa lagu sifeeyey dhismooyinkan. yani ninkan wuxuu sifeynayaa gabayga siday ahaan jirtay meesha. marka sifeyntiisii habka uu sifeeyey darteed ayay awoodeen marka inay dhisaan ama ay sameeyaan siday ahayd ayagoo ka raacaya gabayga. marka taasna waxay ku tusaysaa suugaanta ahmiyadda ay leedahay oo taariikhda ay ku barayso. dadka ethnoprology-ga waxay ka bartaan suugaanta taariikhda oo dadka meeshaas ku nool. marka suugaanta laftirkeeda waa dhaxal. sida Soomaalideena aad ogtihiin waxyaabo badan oo yani suugaan afeedka wax badan ayuu noo soo geliyay inaan ka ogaano taariikhdeena. marka qaybtan oo dhan waxay yani ugu deeqeen inay ku suugaantoodii ku horumariyaan. bal nala kaalay aan kor fiirino, kor usii aadno. halkanna waxay nagu tusayaan markii boqortooyada Cusmaaniyiinta ay yimaadeen bulsho dhismeedkoodii siduu isku bedelay.
marka waxayna tusayaan reeraha siday u noolaan jireen markii aad fiiriso halkan waxa waaye bistoolooyinkii ay adeegsan jireen halkan markaad fiiriso waa fadhigii oo fadhigoodiisu ahaa fadhi carbeedkii aan naqiinay nin iyo xaaskiisii runtii aad dharka ay wataan dhar qurux badan waaye sidoo kale halkaana waa isla reerkii oo degan xaaskii canugii sariirta uu fuulo sidoo kale dharka ay adeegsan jireen markay banaanka u baxayaan ama salaadii macnaha markay banaanka u baxayaan dharkay adeegsan jireen gurigoodana markay joogaan maasha allah si qurux badan ayay ku joogi jireen nala kaaday dhinacayaashii iyo quraankii culummadii iyo waxyaabihii akhrisan jireen odayaashii oo fadhiya sida ujeedaan ninkaas waxaa dhici karta inuu culumo yahay quraanka oo macnaha marka waa odayaashii oo meesha oo fadhiya oo korna markaa fiirisa xataa siilinka si u sharxan yahay iyo waxaa moodaa dadkii hore inay aad dhanka quruxda ugu dadaali jireen markaa fiiriso inta shaqo ay martay in geedahan lasii qorqoro intana haddaa sii gano oo farshaxanka dharka ah gacanta ku sameynaya embroidery ay dhahaan ama anaga aan u naqaana recamenti oo gacanta oo lagu sameynayay oo ku shaqeynaya oo waa kana ayaga tolaya anaga xamar koofiyadii la toli jiray waxaa la toli jiray marka ayagana waa kan isticmaalaya intana waxaa ujeedaan reer aabba iyo hooyo iyo canug wiilka oo cunteynaya oo maasha allah fadhiyo sida sunnada ujeedaa gacanta midiga u taagan maasha allah wiilkana wuxuu sugayaaba inta aabba iyo hooyo ay bilaabayaan kadib inuu cuno oo kale marka ujeedo qolkaana waxaa arkaysaan gabar qurux badan oo fadhisa runtii markii aad fiirisana adoo maalan qofka lamaanaha ah ninka ah markuu gurigiisa soo galo oo u arko xaaskiisa saan u qurux badan isku qurxisay asaga laftirkiisa waxaa galaya hami iyo xoogaha xataa wuu ku farxayaa marka sunnadan waa in la nooleeya hadda waxaa batay in lamaanihii arooska isku qurxiyaan marka taana waa laga fiican yahay inaad gurigaaga ninkaaga isku qurxiso uu kaa heebeysto oo aas nadiifiso taana waxay ku tusinaysaa tusaalahan waagii hore gabadhan say u labisan tahay bal fakar adoo nin aan markaa soo gasho oo aragto xaaskaaga saan u labisatay xoogaa xataa daalkii iyo shaqadii iyo wixii oo dhan waa kaa baxaya adoo dhan waxaa kusoo galaya energy oo caadi ahayn haddana waxaan soo galnay qolkan macnaha waxay ku ifinayaan xayawaanada ku nool mantiqadan iyo dhirta marka qaybtan waxay u qoondeeyeen shimbiraha ku nool Euro-Asia yani guumayskoodii nooc uu yahay sidoo kalena galeerka sida ogtihiin hadda tusaale ahaan magacayga albazi luqadda carabiga waxaa loo yaqaanaa galeer marka magacayga wuxuu ka yimid khasiidadii oo Sheekh Cabdulqaadir Jeylaani maadaama wadankeeni dariiqada suufiyada uu ahaa ana albaziyu ashhabu kulli shaykhin وماذا في الرجال أعطي مثالي معناه علماء waxay dhihi jireen Sheekh Cabdulqaadir waa galeerkii culimada macnaa culimada kuwoodii ugu waaweynaa ay ka wadeen marka waxay ku magacaabeen galeerka marka bulshada Soomaalida oo markaa deganaana magaca Cabdulbaazi waa naanays ka mid ah Sheekh Cabdulqaadir Jeylaani marka dad badan ayaa i weydiiyay magaca Baazi intuu noogu yimid dalka hooyo jaamac iyo waxaasaan u baranay marka Baazi wuxuu ka yimid magacan oo galeerka la yiraahdo oo ay u yaqaaniin naanaystii Sheekh Cabdulqaadir Baazi hadaa maqasho waa adoo Cabdulqaadir itiri marka taa ugu gaar ahaan dhalinyarada oo hadda aan ogeyn taariikhdii hore oo مثلا dagaalada kadib macnaa dad badan oo ogeynaa jira magacyadan laakiin dadkii hore waxaa dhici karta wiil Baazi la yiraahdo inay iskuul ahaayeen inay isku dugsi ahaayeen inay isku xaafad ahaayeen ay ogaadaan maxaa yeelay magaca Baazi uu ku badnaa dagaalada ka hor dalka hooyo
marka magaca baasi hadaa maqasho waa Sheekh Cabdul Qaadir soo xasuuso shimbirta galeerka ah يا وحن كسر لما سنة ميزيم كي حدنا وحن مد مسجد كي تاريخي وعن سنة مقالة سراييفو مسجد كان عيا لغو مقعوا جازي حسرة بك يعني مسجد نين كان أساقو ير عيا لو ذي وحلقي مقالة اسطنبول هل كاسو وكبرتي لانك ميليتريغا الدبلوماسي نمدا وكبرتي وحونا قورسدي قبر كمد boqortooyada oo Cusmaaniyiinta ayuu guursaday marka ninkan asagoo yar ayaa waxa laga dhigay diblomaasi dalka Montenegro ayaa laga dhigay marka laga dhigay diblomaasi uu ka ahaa kadib ayaa wuxuu ka qayb galay dagaalkii Hungary oo wabiga Maharaj oo loo bixiyay oo dagaalkaas oo dagaal weyn ahaa asagoo hogaaminayay guul weyn oo ku soo hooyay oo sidaasina ay boqortooyada Cusmaaniyiinta ku hanteen dalka Hungary marka ninkan waxa la leeyahay dagaalkaas ayaa qaniimo badan soo gaaray askarta xukumaysa generaalada sidaas awgeed ayaana guushaas oo gaaray darteed waxa laga dhigay mayorka ama governorka macna governorka oo Bosnia Sarajevo ayaa laga dhigay marka laga dhigay maadaama uu ahaa qof lacag leh sida nabigeena Allahumma salli sallam alayhi oo kale wuxuu bilaabay inuu dhiso masaajidka kadibna wuxuu dhisay suuqi dukaamadana u jeedaan oo yar oo suuqa ahna asaa dhisay oo marketka ah waa sida nabiga markuu Madiina soo galay masaajidku dhisay kadibna suuqyadu dhisay kadibna wuxuu dhisay school ay caruurta ku bartaan diinta iyo waxyaabaha cilmiga maadiga ah sidoo asaga wax ku soo bartay oo kale Istanbul marka intuusan dhimanna wuxuu u waqfay dukaamada iyo kulli wuxuu waqf ahaan u siiyay masaajidka iyo marka hadda masaajidka waxa maamula hay'adaha diinta marka dukaamadana wixii ka soo gala masaajidka ayaa loogu tabarucaa ayaa loogu lagu maamulaa masaajidkan markii Sarajevo oo lagu hareereysna dhaawac weyn ayaa soo gaaray laakiin dib u habeyn ayaa lagu sameeyay restoration taasoo u suuragalisay in hadda yani dalxiisayaal badan ayaa imaado marka ninkan nin taariikh weyn ku leh waay maxaa yeelay asagoo dalkiina u dhashay governorna ka noqday horumarka ugu weyn oo wadankan ku talaabsaday ninkii oo macna dhidibada u aasay inuu ahaa ayay sheegaan marka bal nala kaalay masaajidkan aan gudaha u sii galnay wali waxaan ku jirnaa hadda gabagabadii maalinteeni afraad waxaan ka soo baxnay masaajidkii hada aragtaan meeshan waxa la yiraahdaa meeshii ay ku kulmayeen boqortooyadii Cusmaaniyiinta ah iyo boqortooyadii Austro-Hungarian marka meeshan waxa loo bixiyay meeshii ay ku kulmayeen oo ujeeda Sarajevo meeting of cultures labada dhaqan ayaa meesha ku kulmay dhankaas waa boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxna waxay u egtahay Istanbul dhankaana waa dhankii Europeanka waxay u egtahay Vienna oo kale Austro-Hungarian marka labada dhinacba boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo boqortooyadii Austro-Hungarianka contribution koodii wax badan ay saameyn ku yeesheen oo wadankan waxay ka wadaan dad badan gacan ka geystay oo markii boqortooyada Cusmaaniyiinta la jabiyay ay baxeen ayaa waxa la wareeyay Austro-Hungarianka marka fiiriso dhankaas dhismooyinkii oo sida Istanbul oo kale u egtahay dhankaana malab lagu daray meeshii la dhihi jiray macaana wax uma dhimo mugno oo ziyaadiya marka boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo boqortooyadii Austro-Hungarianka macnaa waxay noqdeen malab lagu daray oo kale oo macaana wax uma dhimo mugno oo ziyaadisa marka wadankan marka fiiriso dad taariikh dheer ayuu leeyahay boqortooyadii Cusmaaniyiinta boqortooyadii Roomaanka boqortooyadii Austro-Hungarian kadibna waxyaabo waxa dhacay مثلا inay inqilaab u dhaco oo lagu dilo la afgambiyo boqortooyadii Austro-Hungarianka kadibna oo General Tito oo Marshal Tito uu qabsado asagana warshadeyntii wixii oo wax ka geystay wadanka wuxuu noqday wadanka ugu horumarsan dhanka ciidamada militariga wax walba
marka wadankan mar walba gacmo isku dhiib uu ahaa marka insha Allah taala maalinteen afraad halkaan ku soo gabagabeynayna hadda waa qaxwaan doonanayna ama insha Allah taala waa barnaamijkii dhul marow waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa saaxiibkayga Ibrahim Abba oo runtii hool weyn geliyay oo juhdi weyn geliyay inuu muuqaalkan suura galo u soo daceeya Ibrahim Abba iyo barnaamijkii dhul marow oo aad ka fiirsanaysaan dhul marow channel iyo TV-ga caalamiga ah Universal Somali TV barakallahu fiik السلام عليكم وحا برنامجكي dhul marow ayaan ku jirnaa waxaan soo booqanay suuqi oo macna kobarka marka ninkan Kenan ayaa la yiraahdaa aabihiisa 1930kii ayuu bilaabay waxaan sidoo kale waa familkiisii halkan walaalihiisii marka waxyaabahan oo dhan ayuu sameeyaa oo farsamo yaqaanka marka kan waa xabadihii dagaalada oo ka dhacay madaafiicdii oo lagu soo riday dhacay marka madaafiicdaas ay waxay ka sameeyeen farshaxan dadka ayaa xusuus ahaan marka meel u dhigta intana waxa waaye footballka dadka reer UK Liverpool Manchester Newcastle qofkii oo support gareynaya isagoo oo maar ah marka waxyaabo badan ayay sameeyaan laakiin tusaale ahaan xabadihii iyo wixii ayay farshaxan u bedeleen si ay nabad yani uga taliyaan marka taas ayaa wax cajiib ah yani madaafiicdii lagu soo tuuray oo markii lagu hareereysnaa 3 sano ayay waxay ka dhigeen mid for it. He was pressured a little bit by European community at the time to show a bit more appreciation for how diverse the whole region is. So that's when he decided to partially fund the search. But either way, it was built while the Ottomans were still here. guryaha la dhigto oo farshaxan ah marka runtii waa maalinteeni shanaad oo magaalada ku wareegayno runtii sharaf weyn oo thank you very much Mr. Kenan thank you maantii shanaad iyo maantii ugu dambeysay بسم الله الرحمن الرحيم هدنا وحان سو قلني كرفانكي غازي غوفرنر غازي حزر بيك ووقفي دلك بوزنيا ان اساغا دسي وحو دسي مساجدك سوخا اي كرفانكان وحو دسي dadka ganacsatada ah markay yimaadeen oo badeecadoodii keenaan meel ay ku nastaan meesha hoosana fardaha ayaa lagu xareen jiray marka sababta fardaha loogu xareen jirayna waxa waaye kuleel ayuu u keenayaa guryaha macna heating system ayuu u keenayaa marka fiirisaan xagga fiirisaan waqafkii ku qoran Ghazi Husr Beg waqaf yani uu waqfay laakiin halkan waxa imaan jiray ganacsatada maadaama meesha ay ahayd oo Yurub iyo Eastiga isku xiri jiray magaaladan ganacsatada markay yimaadaan intay jiifan jireen fardahooda hoos dhigin jireen sida magaalada Muqdisho markii Ibn Battuta uu ka hadlay ganacsatada markay imaadaan ay xeebaha imaadaan guryaha ayaa lagu soo dhaweyn jiray oo ilaa alaabtooda ay ka gataan kadibna ayaa qaadiga macsalaameyn jiray maadaama meeshan meel xeeba ay ahayn oo ganacsiga dhul uu ku imaan jiray macna karavankan ayuu u sameeyay si ganacsatada ay u jiiftaan meeshan marka waa meel taariikhi ah hadda suuqay noqotay dada ijaartay laakiin lacagta ka soo gasha masaajidka ayaa lagu dayactiraa meelaha marka uu waqfay dukaamada ayaa lagu dayactiraa marka waqaf ayuu u siiyay marka waa arin aad u fiican ninkaana waa nin aad loo ixtiraamo dalkan oo mar walba ay u daceeyaan oo xus gooni ah loo dhigo marka waa inuu meel kale laakiin waa meeshan waa meel taariikhi ah haddana waxaan joognaa meesha biyaha laga cabo boqortooyada Cusmaaniyiinta ayaa waxay sameeyeen meelahan oo kale oo biyaha laga cabo jidadka oo dhan ugu yaraan 250 xabbo ayaa ku yiilay magaalada Sarajevo meeshan biyaha laga cabo markii Austro-Hungarian-ka ay imaadeen way burburiyeen kulli wixii magaalada ku yiilay laakiin waxay ogaadeen ahmiyadiisa iyo in la kaydiyo boqortooyada Cusmaaniyiinta saas darteed ayay midkii oo kale ayay sameeyeen oo meesha nina ka shaqeyn jiray dadka oo safraaya ayaa biyaha ka cabi jiray laakiin Austro-Hungarian-ka waxay ku dareen jaranjaradan ay ku dareen
sidii u sameeyeen marka xusuus ahaan meeshana biyo nadiif laga cabi jiray dadka oo laga cabi jiray marka xusuus ahaan ay ugu wareeyaan marka tan waxay ku tusaysaa ahmiyadda ay leedahay in waxyaabihii hore la keydiyo meelaha taariikhiga ah dalxiiska ayaa lacag ka soo galayo dhalinyaradana jiilka cusub waxay ogaanayaan meeshay ka yimideen iyo waddankan meesha laga keenay taasoo u horseedaysa ogaansho nafeed heer sare ah oo hogaamiyana ka dhigaysa dhalinyaradayna iyo jiilka cusub marka waa muhiim in la keydiyo meelahan oo kale meeshii biyaha laga cabayay biyaha waa cabi lahaa laakiin waxa waaye hadda gacmaha dhan qabow iyo biyo badan aan soo cabnay barakallahu fiik